Waqtiyadan aynu joogno waxa mobilesku ay noo yihiin kuwa meelaha ugu faraha badan leh ee aynu ku kaysano siraha amba xogaha inoo muhiimka ah inaga. Hadda maanta waxaan ku tusi doonaa 4 qodob oo haddii aanad hore u samayn uu mobilkaagu amba se xogtaadu ay khatar ugu jirto in laga jabsado amba se si fudud lagu helo. السلام عليكم magacaygu waa garad xagga adiga daawanaysaana waa channelka murasa.com ugu horta waxaan ka codsanayaa muuqaalkan inaad like saari doonto soo kale aad u share garin doonto asxaabtada kale si muuqaalkan uu gaaro dad fara badan oo muhiim u tahay in xogahooga amba siraha ku jira mobilkooga ay ilaashadaan ama si aan ku soo badinaba muuqaalada sano kala hadaba waxa dhamaantood mid qof kasto inaga waxa uu isticmaalaa Gmail si kasta ha uu isticmaale hadda mogsoontahay Gmailkaagu uu yahay meelaha ugu faraha badan leh ay ku jiraan xogtaada hadday noqoto sawiraantaada hadday noqoto muuqaalada hadday noqoto nambarada save gareysto iyo hadday noqoto dhammaan waxaad ka dhex samaynayso internetka gudihiisa hadda waxaan ku tusi doonaa 4 meelood amba 4 qodob oo haddii aanad hore ugu samayn Gmailkaaga amba se hore aanad u jeegareenba ay hadda tahay inaad ila samayso haddaynu u nimaadno qodobka koowaad ee si xogta mobilkaaga aad uga dhigato mid secure amba se aamina inaad samayso ayaa waxay tahay waxay naqaanaa caadiga markaan samaysano Gmailka password ayaanu samaysanaa laakiin waxa dhacda marar badan in passwordka aanu ka dhigno waxyaabo common ah amba si fudud loo garan karo saadey noqoto hooyo 123 amba hooyo 143 amba 1 ilaa 8 amba se numberkaaga amba waxa dhacda markii qaarkood hadii Gmailka aad isticmaasho uu qof ku sameeyay kadib password aan soo sheegnay qaar la mid ah uu kugu sameeyay hadda si tan aad kaga ilaaliso oo sahlaysa in hadduu qof isku dayo passwordkaaga inuu helo amba ay yihiin kuwan waxyaabo ugu horeeya ee qofku uu ku eegi karo si taas kaga ilaaliso waxay tahay in Gmailkaaga aad u samaysto password strong ah amba si ay adag tahayba in la garto sidoo haddii kuwa dadka hore aad ku jirto aad hadda u bedelato ay waxa tagi doontaa Gmailkaaga kadib Gmailkaaga markaad tagto aad ku wato qaybta ku qoran manager Google account waxaad ku wato xaggan ay ku qoran tahay personal info halka markaad ku dhufato hoos u socon doontaa ilaa aad ka soo gaarto qaybtan ay ku qoran tahay password kadib waxaad gashan doontaa password strong ah oo iskugu jira xarfo caadi ah iyo nambaraan iyo soo kale calaamadaba qodobka labaad isaguna muhiimka u ah in xogta mobilkaagu ay noqoto mid ilaashan ayaa waxay tahay waxa dhici karta haddii imika muuqaalka marka aad dhamaysato haddii farsamada marka kuu sheego haddii aad samayso in Gmailkaaga aad ugu tagtaba mobiles aanad garaneyn hadda mobileska aanad garanayn waxay awood ay u leeyihiin inay helaan xogta mobilkaaga inta ugu faraha badan leh ee hore u soo sheegay hadda si aad u jeegarayso in mobilkaaga amba Gmailkaaga lagula isticmaalayo ayaa waxa sameyn doontaa markaad ii timaado xaggii hore waxaad tagi doontaa qaybtan ay ku qoran tahay security kadib xaggan waxaad ku qorto meel ku qoran tahay your device kadib halkaas markaad ku dhufato waxa ku soo bixi doona mobileska uu ku jiro Gmailkaaga ee awoodda u leh in xogtaada ay helaan marka mobileska aad u garan weydo in adigu mid aad leedahay aanu ahayn waxa sameyn doontaa ku dhufan doontaa kadib waxaad oran doontaa sign out kadib saa ayuu kaga bixi doonaa waxaana uu noqon doonaa Gmailkaagu amba se xogtaaduba mid ku gaara mobilka adigu aad leedahay amba se aad isticmaashaba qodobka saddexaad ee muhiimka u ah in xogtaada aad ilaashato ayaa waxay tahay waxa dhici karta si kasto ay noqoto amba si kasto passwordkaaga aad soo adkaysataba in marka qaarkood qof uu si uun ku helo passwordkaaga iyo soo kale ciwaankaaga laakiinse waxaad samaysan kartaa farsamo ah in aan qofkaasi awood u yeelin doonin inuu galo Gmailkaaga ilaa adigu aad aqbasho amba se adiga uu ku soo diro code numberkaas soo gashatay Gmailkaaga taasoo runtii waxay in badan ka caawin doontaa in Gmailkaaga aad uga warwar la'aato in meel kale laga galo way waxa ku xidhan yahay adiga ogolaanshaha saado farsamadan aad u furato waxaad ii sameyn doontaa halkii hore adigoo ii jooga waxaad ma doontaa qaybta ay ku qoran tahay security-ga ee imika aan taagnay kadib qaybta markaad ii timaado waxaad ma doontaa qaybta ay ku qoran tahay two step verification kadib qaybta markaad ku dhufato waxaad sameyn doontaa waxaad dooran doontaa numberka aad u baahan tahay amba habka aad u baahan tahay in lagugu soo diro code-ka amba ogolaanshaha sheegaya in Gmailkaaga haddii device amba qalabka mobilka laga galo inuu ku soo diro code amba warbixin sheegaya in Gmailkaaga meel kale laga galay aanu geli doono qofkaasi ilaa adigu gacantaada aad ku ogolaato qodobka afraad ee muhiimka u ah in xogta mobilkaaga aad ilaashato ayaa waxa yahay waxa dhacda marar fara badan markaynu booqano website-yada qaar inayna weydiiyaan in Gmailkeena aynu ku galno
kadib aanu ku dhufano sana gmailkeena uu inoogu galo haddaba waxaa dhacay marar fara badan in website-yadaasi ay heli karaan xog ka mid ah macluumaad ku kaydsan gmailkaaga hadda si aad u check garayso website-yada ku kalsoon tahay iyo kuwa aad rabto inaad kala baxdo gmailkaaga ayaa waxaad samayn doontaa waxaad tagi doontaa gmailkaaga ama se qaybtii hore ee security-ga ee marka hore wada joognay ayaad iman doontaa qaybta markaad timaado hoos socon doonta ilaa aad ka timaado xaggan ay ku qoran tahay signing in with Google kadib xagga markaad ku dhufato waxa ku soo bixi doona noqon doona dhammaan website-yada gmailkaaga aad ku gashay haddii marka ay jiraan qaanad adigu aanad ku kalsoonayn amba se wax warbixin amba se wax muhiim ah aanad uga baahnayn waad ka saari doontaa ugu dambeyn waxaan runtii kuga talin lahaa horta in mobilka uu yahay samankan aynu noolnahay waxa ugu muhiimsan ee xogtaada laga heli karo amba se ay ku kaydsan tahayba waxa markaasi muhiim ah in aad iskaga ilaaliso cidaad ku aaminayso akoonnadaada amba se laftarkeedaba cidaad u dhibayso mobilkaaga waayo mar badan waxa dhici karta haddii qof mobilkaaga in yar uu kaa qaado in qofkaasi awood u yeelan karo inuu heldo amba se qofkaba uu gudbiyo dhammaan xogta mobilkaaga amba se gmailkaaga waxaan rajeynayaa in mobilkaagu in gacantaada aamin ku noqon doono